guud ahaan gobolka Sanaag waxa uu leeyahay taariikho kala duwan. Waa gobolka Soomaaliya ugu taariikhda dheer marka la eego dhinaca xeebaha iyo deegaanada qaarkood. Haddaba marka laga tago deegaanada xeebaha gobolka Sanaag iyo kuwa badda oo aad ilbaxnimada iyo xadaaradu ay ugu fogtahay, waxaa jira magaalooyin kale oo ka baxsan badaha kuwaas oo qadiima. degmada Buraan ee gobolka Sanaag waxay ka mid tahay magaalada ugu qadiimisan gobolka Sanaag marka laga tago dhinaca xeebaha. Ma jirto magaalo ka fac weyn. magaalada Hadaaftimo iyo Ceergaabo ayaa soo raaca. haddaba si aan taariikhda Buraan aan wax yar uga iftiimino, waxaan la sheekaystay Siciid Bootaan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada gobolka Sanaag, gaar ahaan deegaanka Buraan ee gobolka Sanaag. deegaana oo magaalo ah midna ma ahayn. xilliyada hore oo la isku hayay xilliyada hore colaad iyo ciidan baa fadhiyi jiray. marin Cabdul Xasan baa fadhiyi jiray. mar waxa fadhiyi jiray ingiriis soo ha fadhiyay askar baa u joogi jiray. صح magaalo ma ahayn garahda marka waaga ingiriiska iyo xilliyada la fadhiyo waa qarniga hore kama yara dhageyso waa ingiriis qarniga hore. wax deegaana oo jooga oo aqal ah oo ka dhisan aqal dahar baa jiri jiray. dahar habar isla weyn la yiraahdo baa aqalka joogi jiray. habartaas maxay ahayd? dahar bay guriga u ilaalin jirtay oo ilaalada dahar bay ahayd. ilaalada dahar bay ingiriis waxa u joogay halka oo dhiisay ka ahaa ninkii Tuurqurun aad ku maqantay. maxamed jaamac ninka magaalada dusheeda deganaa. isaguna Faadumo dahar buu qabay waa ninka beerta xidid buu la ahaa. labadan nin oo midna askariga yahay ciidanka ingiriis yahay midna aqalkii dahar yahay baa aqal ka dhisana labadaas ugu horeeyay aqal laga dhiso oo Soomaaliya dahar iyo Tuurqurun kunaaga u joogaan garafada baa ugu horeeyay. ima fahmeen waa ku fahmeen dadkii u horeeyay oo dhisa waxay ahaayeen Tuurqurun iyo dahar bay ahaayeen dadkii labadii u horeeyay xidida oo sodog uu dhaharu yahay oo Faadumo dahar ka qabo adduunkana usaga haystay wixii ilaa Ceergaabo ilaa xuduudka usaga haystay Tuurqurun. ingiriiska u qaabilsanaa labada aqal baa ugu horeeyay aqal Soomaaliya oo Buraan laga dhiso oo degan magaalo ma ahay garafta markaa waa guriga soo ma garan siiga sanadka la yiraahdo aad ku maqashay baa gargaar la dhigay Buraan. gargaarka caydi ya caydi la dhigay caydi ka horreysay jirtay oo bixin iyo Buraan iyo dhulka dhigay ingiriisku dhigay ma magaaloobin ma socon sanadka siiga la yiraahdo. ima fahmin waa ku fahmay siiga sanadka la yiraahdo soo ma garan. Buraan maalintaas oo magaaloobay oo magaalo degtay oo Soomaaliya taariikhda misaal sanadka taariikhdiisu hadii taariikhda doon sano ka dambeysay kuma sheegi karo ka dambeysay sama anigu guyaal baan tirsadaa garo hadda. صح guyaal baan tirsadaa siiga 24 baan jiray anigu maanta 7 baan jiray halka ka xisaabta ya 7 baan jiray waa guyaal baa hadda ii tirsan sanooyin maaha waagana 40 ya tajirta waagaas waxaan jiray 24 waa dhowr iyo 60 sano meelahaas waka waa 60 waka waqtigaas la dhigay gargaar baa la dhigay ummad baa isugu timi soo ma garan. صح waqtigaas Buraan la dhigay. dhinaca kalena Cali Gaani Ismaaciil oo ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa isna ka hadlay Buraan sidii ay ku magaalooday, xilligii la aasaasay, waqtiga uu ogaalkiisa ah iyo sidii ay ku magaalooday. waxaana Cali Gaani Ismaaciil uu sheegay inay soo martay marxalado kala duwan oo haatan ay ka sokayso muddo aan ka yarayn qarni. waxaana hadalkiisa uu ku bilaabay sidan.
وعشان كان ستة دكان ما كان محمود علي بري إله كل حرس الدكان حسن قال لي يا موسى اسماعيل ما دكان بكله هارو يبا تمال ما تقدم مثلا ولد جاي إلى سيدي كنت تقدم يسي مالي والبولد جاي وادي سويسي إلى أمر كده ما قال تد نهار يبان نهار بنا وريجين نهار قلت فيك لك قضي فيك قال اللوجو ما تيجي جلوس وما تلاقين ما قال لك دقو وحال لوجو تلاقين حوله كعبان وايو حلين يبرا واحد حياة مجري تبين ما قال لك دقي سلاسة مركا أنا نهارين مركا ودلتي وحاجة وورتي حقولون ودلتي لا يلبون ودلتي أنا قلت ما قال لك مية وكذا أنت كوبانه كل واحد هو يو برام هو يو أنا أفتني يوم برام بقول لما قالوا لك وقال لك أوه حلو ورسمي أنت هسه أنا أقول قرنا يا خصوصا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.